la cadhoonayaan waa aniga wax iga dhiga reerabtinimo wax iga dhiga laakiin ha ma noqonayso أنا خلاص هذا نكات والله بالله أنت فعلا وهذا الله ويسوي جوجا جوجي أو معنا أيام نقول على أيوش من الفرح فرح ما وكل فعلي وين فعلي أنا غير متعانى وين فعلي وكل مثل شيء أنا واحد يجي نكني وأنا عليه أي بال قبيو العشي أو كفر أو حيو شيء أو ما أو راحت يعني عشان نقول جنبي إن أو نداش وقت حويان أبشيجا أو أبشيجا يقول لك نكيل هذا أبشيجا كبكرنا يقاني وضعهم إلى هي ودربها يا ولا يبلا تاهو بقى عم قالوا ما يوكا أبيات أبشيجا هيبة هذا له أبشيجا هيبة ولا المرجع ليش واحد تالو عيسى كم أورنا يرهر كتولكا نو حقر نو بهدل نو بوب حقه نو بقعد عيسى كم ولا بقى marka waxa weeyaan wixii kale wallahi male ha marka wax weeyaan aad baan ilaahay wa cajibayo ilaahay naaskan oo jinashii ay xalaasha aha iyo sida loogu calaamadayo wallahi meesha aaga anu inta jeer aniga la xidhay oo 10 jeer ka badan tahay waan maqlay oo hataa dib leeyahay عيد كذي كأنه هاي بدوارد هراني هلا لا ما كعبة أنت كذي كلا يجلس أي مرة كم أبغى نسحي ترى أنا ما كان يعو يمي كمان إك حاول أقوى هاي وحق أنت خلي حق اللي حري جو بعض الجزء هاي جو دراك اللي هاي جالس شغله الله يا هذا سوق يو عم يسوي أنا ولا شيء ناس ما عبلي والله هاي أنا حيو ويا وحال جابه يعني يقولون يو لا يقولون هيلون يو إك يعني وحياة كانت والله غيابة والله بالله قف قديم الإله هدوك يا بين يقولون روح جنبي ولا أركب ولا أركب ياد بنك جميع العلمية برامج الله يخليك الله نورك على هي حق ونشفى ما شاء الله إن شاء الله ياد خير مرجين السلام عليكم عليكم السلام يا نيك صاحب كده بركلي arrinta aan isku haysano wax ka soo hadda ma aragteen waxaan isku haysano dabarkale wax ma iniga ifeen waa arrinta aan isku haysano arrimaha soo doonaysin inaan midnimo iyo Djibouti inaan badbaadino soo doonaysin inaan ciisiya afrash ku keeno intaayoo passport iyo lacag hubka aad u diraysa canfarta iyo dagaalka gelinaysid baa iyo xala filaan wala si dowlo wala si passport diplomatic no wata لازم كيس كمارتي يسافر waxay wadaan iyo fitaalinta u shaqeysay joogta durdhabe ay shacab yaada galay arkaya waa esko waa ragga maartay ay si afar kala dilay waa ragga maartay reer Djibouti kala dilay wadaana eega bal inta meelood uu ku jiro WhatsApp-da inta meelood uu ku jiro maxaa ku dhex dhigay dabarkalo habeen iyo maalin wax kala kama hadlo bi pratiquement shanta sanadood u dambaysa wax kala kama hadlo kan kuleey dadka Allah kuleeyahay aqallan ka dhistay in waan iskaga soo baxay war qof ta iyo baa galeen oo shalay tood yimid aqoonta aad haysatid dabarkalo ee aniga iigu faanaysi waadigan dukaan yar oo ingiriiska jooga maaragtay ingiriiska adoo jooga dukaan yar oo cadara ah waadiga carabka Dubai jooga ka soo qaatay ee yiri maaragtay Djibouti baan weerarayaa Djibouti baan ka qabanayay karkuulay lag isiye yiri dukaan yar intood awsa geysay aad tustay jabhadii canfarta iyo wixii oo dhan aad tiri waa ka hubkii waa ka hub isiya dhaqaale ani siiya Djibouti ana inii qabanaya boorkii ana inii soo celinaya intood tiri lacagtii aad qaadatay ma garanaysaa tiradeedu intay leekay arinta ma la og yahay dadka canfartu ma og yihiin inaad qandaraas ku qaadatay oo canfartana aad uga dhigtay inaad ay nicaawinayo ay dadka canfartana ay Dubai ay dad nicaawinaya tahay waan ku hayaa fiidiyoodii aad geysay waftiga maxaan ku dhahaa Dubai ka socdo ee cawsa geysay tiri maaragtay ragana caawinayo oo dhaqaale iyo hub iyo dawladnimo iyo wax walba la caawinaya tiri danta aad kala haydna ay ahayd carabtana waxaad ka tiri Djibouti baan inii xoreyn boorkiini ayaan inii soo celin maxaan ku dhaayay
waxaasoo ciidana ayaan hayaa hubkii iyo dhaqaalihii aan waxaa ku hawlgelay halaysiiyo ood markii dambena ingiriiska kaga furtay dukaan lacagtii ma ogtahay canfartu ma ogtahay reer abtigaa warniyo inaan kugu dheeraada mar rabee dagaal diyaar haddaa u tahay soo xaydo soo fadhayso anu dagaal afka canfarta waan ku hadlaa dee maadaa ay baray afka canfarta waan ku hadlaa afka canfarta dad aqoon leedahay oo dubloona leedahay waxaa kuma shaqaysateene mishahar baad ku shaqaysan lahayd aqoontaadu meel bay ku fadhiisin lahayd ama Djibouti baad wax ka noqon lahayd ama wadanka aad joogtid qurbaad wax ka noqon lahayd ama fataalnimaad wax ku iyaad ka shaqaynaysaa intaad cimrigaagii iyo isku dir iyo isbiyoonnimo marka kuguma mashquulayo aad baan ku salaamaya dagaalkana halka ka wad waxaad ka heshaanad leedahay way ku walaano tala ku soco aad baan ku salaamaya marka waan ka gudbaya odayga abtiga ee kuma rafanayo waaniga idin sheego iska cadhaysan yahay bal waxaan idhi ayaa kaloo soo qabsanaya fansajuwaagii baan wax yar ka hadlaya fansajuwaagii waxa dhacay waxaan toddobaadkii hore idin idhi calanka annagu macaayin mana aflagaadayn laakiin waxaan idhi war calankan waan ku qadnay dadkii u halgamay iyo dadkii u dhintay iyo dadkii gobonimadan keenay way ku qadeen taas waa wax la isku qiray waa wax la isku raacsan yahay marka waxa weeyaan waxaan idhi qof walowba soo qaado maxaa la buugiga qalino bal xisaabtan oo wixii faa'iido aad ka hesheen iyo wixii khasaare aad nigu soo gaadhay iyo wixii imika aad higsanaysiin aad isku sugaysiin bal maxaan ku dhaayay soo xisaabtan waxaad arkayseen nin Xuseen Cumar la yiraahdo oo nin buu ku soo baxay Fuaad ku soo baxay ayaa maaragtay oo daawadayaal ku soo galo daawadayaal soo dhawaada daawadayaal oo afar qof ay u soo gasho oo idaacadii xidhay oo la dhageysan xitaa wuxuu ku soo galay buug waxaan idhi buug soo qaata nin walba qalin buug qaado waxaad wadankan horumar aad gasheen iyo wixii khasaarin qora kolkaan idhi habeenkii baa la soo daabacay buug isla habeenkii ayaa buug la soo daabaco buug uunan akhrinaynba oo waxa ku jiraba xitaa aan la sheegayn ayuu la soo galay halkan Xuseen Cumar wuxuuna tusay laba diyaaradood drone waxaan garanay laba doonyood oo baabuur saaran waan arkaynay waa sax weeyaan doonyuud belbel bad ma leh baabuur bay iyay ku mareen difileega oo waxa weeyaan inkastuu nidaamku ka xun yahay doontii oo baabuur saaran oo mooteerkeyguna kacsan yahay biyihii uu mooteerku u baahnaa na uu helayo uu mooteerkii xiinkiisii la maqlayo qiiqiisii iyo biyihii uu tuurayay iyo wixii oo dhan la arkayo ayaa xitaa wadooyinka lagu maraa oo in may gaadhin dee malaha heerka iyagu may gaadhin waxa weeyaan anaa u sheegaye foosto ayaa la soo qaadaayo waxa lagu ridaa mooteerka xagga dambe ayaa bir loogu xidhaa waa iyadoo saaran yahay baabuurku ayaa mooteerkaas foostada maaragtay afkiisa lagu ridaa mooteerka xaggiisa muraxadda ama eelista loo yaqaano si uu helo biyihii mooteerkaas waa la kiciyaa biyahan uu tuurayana waxaa lagu hagaajiyaa inuu dib ugu celiyo maaragtay foostada ayaa tuumba yar loo sameeyaa dib baa loogu hagaajiyaa oo loogu ceshaa marka mooteerkaas isagoo baabuurka lagu jiidayo oo maraya maaragtay dekada belbela ayaa laga dhigaa inuu mooteerkani badii socdo oo kale waxa la sameeyaa xitaa baabuurka lagu riixayo ee lagu jiidayo ayaa lagu dekooreeyaa badii baa lagu dekooreeyaa ranji bule aan la mariyaa waad haddaad soo qaata haddaad qaadan kartiin oo awooddaa leedihiin wixii nii sheega waad qaadatiin aqoon ma lihiin waa dhegaatiina ku mara difileega marka dambe oo qaata waa kaa idii sheegeen waanaad ogaan doontiin way qaadan doonaan waad arki doontiin waxa weeyaan intoo baabuurka ranjiga la mariyo bule laga dhiga qaybtan dambe oo dhan maca taayirada oo la dekooreeyo badii oo ranji bule loo ekaysiiyo ayaa mooteerkana foostada loo sameeyaa xitaa foosaduna waa bule baabuurkii waxa laga dhigaa mooteerkaas doonta laftigeega iyadoo badii ku jirtaa laga dhigaa oo dadka ay loo arkaa sawirkeega marka doonyahaba sidaasaa loo sameeya laakiin waxaan garan weynay diyaaradan baabuurka lagu jiiday ma bilaaha weeyahay ma bad bay joogtaa iyadu ma doon bad laga soo saarayba diyaaraddu maxay u kici weyday hadday diyaarad daroonaho jirta ay tahay
oyna waxaan reer kalaam ahayn maxay u kici weeyday ma taqaanin diyaaradani meesha ka timid ma taqaanin lacagta lagu soo iibshay ma taqaanin sababaha loo soo iibshay ma taqaanin inay shaqaynayso inayna shaqaynayn waxa weeyaan haddii la dhaha bandarada ugu dheer caalamka wadanaya ها عبدو wax yar in yarsu inta yar handhameeye waan ku wareejinayaa sida ay ku jiro live-kii baan ku jira marka waxa weeyaan waad aragtay nuclear baa la sameynaya annaga sameynayno waxaan sameynaa day xaq gacmeed annaga sameynayno waxaan sameynaa bandarada noocan ee caalamka ugu dheer ruushka ku taal annaga ruushka naqshadiisu sibay waa la bilaabaya wax kasta diyaaradahan droomka waxa weeyaan waxani hadii uunan nidaam dawladnimo maxaan ku dhahay hab wax maaragtay structure amba maaragtay nidaam uuna jirin lacagta de meel walba lagu bixin karaa wax walba waa la soo iibin karaa wax walba de waa lacagta dadka laga dhacay waa lagu soo iibinaya ilaa dad la xisaabtamay ma jiro dad xoolahan ilaalsanayo oo la xisaabtamay meesha ku baxayaan waxa lagu soo iibinayo inta khasaarayso inta jajabayso inta mashruuc maaragtay in naqshadooga la diyaarinayo ee maaragtay ka baxaysa haddana hawada ee aan la dhaqaajinayn ee naqshadani lacag ku baxayso ee safarada iyo shirarka la tagay lacag ku baxayso malayn maysid waxaan hayaa codadka uu leeyahay 35 sanadood baan ceelkan jotalmiiga ee ku yaala gubeed maaragtay la kabeel halkan gubata khabar intaasoo malyan aan ku bixinay wax faa'iido ana kama gaarin ayuu leeyahay Ismaaciil Cumar waa sidaas oo kale waxa la leeyahay bandarad baa la arkay naqshadeeda annaga dhisayna la leeyahay bandarada ugu dheer caalamka injineera la siinaya lacag intaasoo malyan naqshadii soo diyaariya naqshadii baa la diyaarinaya waxba waa kaabadii aad ogeydeen maaragtay isku xidhaysa boogi isku xidhayay Yamanta iyo Djibouti waa booga waa nin baa u keenay fikradaas oo kolkiiba dhab markay lacagtii la soo shubay lacagtii la qaatayna Eritrea la siiyay lacagtii qayb oo la yiri si aan uga badbaadno lacagtii soo cishaa la oranay meeshiiba waan qabsanay oo annaga dagaal baa socda si aan u nidhaahno oo mashruucaasi uu noqdo waxaan luganahayn halka ugu fadhiisto maxaa ku dhaayay gasiirada soo gal baleeg daroonkan waxaa keenay Cabdilaahi Cabdi baa ula tagay Ismaaciil Cumar fikradan oo ka yiri iyo Mareykanka Ismaaciil Cumar iyo Mareykanka ayaa la yiri xagga amniga iyo security-ga iyo Qatar iyo Al-Shabaab iyo ababa hawadan wadanka dhanba ka ilaalinayna hawada Djibouti oo dhan baan satellite ka dhigaynaa waxan waa yaalay marka lacag waa lagu bixiyay ama laakiin ma shaqeynaysa dadka loo tababaray aw xagar baa loo tababaray xagar ma taqaanin ku yahay waa Cabdilaahi Cabdi inankiis ma la halku jooga Cabdi halkee maanta mashruuci wixii oo dhan way xidhan yihiin kombiyuutarradii maxaa la dhahaa xagar hawada ka bax Cabdilaahi Cabdi hawadu ka baxay droomka hawadu ka baxay droomka wuxuu u baahan yahay satellite droomka wuxuu u baahan yahay aqoon droomka wuxuu u baahan yahay dad khibrad leh oo daacada droomkan uma baahna maaragtay corruption uma baahno iyo qabiil droomkan wuxuu u baahan yahay xirfad iyo aqoon marka ma weydi xagee jirta marka droomkan wax jira ma ah wax shaqeeyo hawada Djibouti socdo ma ah droomku waa diyaarada maxaa hawada loo marin waay maxaa bawrta loogu riixay ma dadka aqliga laga xadaya markaas dadkii aan aqoon lahayn ilaahan Djibouti oo ka yaabsatay dawladihii jaarka oo soo bandhigtay droomka xaguu socdood ka yaabteen droomka aad ka yaabteeni xaguu socdood ka aragteen halkuu ma hawada Soomaaliya soo galay ma Ethiopia soo galay xaguu soo galay ma waxa diyaaradda lagu riixay artificialka ayaa markaa waxa weeye buugii Xuseen Cumar soo qaatay intuu sidaa u kala rogay wuxuu sheegaba uu garan waayay waa ka waydii haya ayuu iska laabay inaan ku dheeraada marnaba waa qof iska xamaalinayo oo maaragtay noloshiisa ridanay anu kama xumi iska xamaasho Xuseen Cumar laakiin waxa weeyaan wuxuu sheegaba kolkuu garan waayay wallahi kolkuu wuxuu sheegay garan waayay iska dhigay buugii muu sheego wax qabadka muu sheego waxa wadanka hore uu ku soo maray muu sheego horumarkii la gaaray muu sheego waxa soo kordhay kolkaan nidhi warni walba buug iyo qalin qaado oo maxaan ku idhaayay wixii
aad faa'iideen iyo wixii la khasaaray hal soo saara kolkaan nidhi habeenkii baa la soo daabacay buugoo loo dhiibay buuga maxaa ku sawiranta Ismaaciil Cumar baa ku sawiran dhinac walba guud iyo gudo dhinac walba laga rogaba Ismaaciil Cumar baa ku sawiran marka sawirka Ismaaciil Cumar dadku wayna yaqaanin wayna hayaan marka waxa weeyaan kolku wuxuu sheegay ba waayay way tusayaan wuxuu sheegay markuu waayay Xuseen Cumar uu iska laabay buugi waa Fariid iska shaqaysa adeen waa iska shaqayso dadka wax la cuno noolo winaadeen iska noolo الشرقرية واحد لقي دول الناس دي قبل كلاباتور اوكي ايوه waxaan tusayay raali noqda waxaan tusayay nin baaba ku ilooba khadka waa raali noqdo waan kugu ilooba khadka Abdo السلام عليكم الو الو عبدو ما مقليسيد وان maxaa ku dhac waraalin waan ku ilooyay baasha ila taraaraxday waan ku soo qabanayaa iska dhigdo ma soo qabanaysid waan ku soo qabtay laakiin ma qaleen codkaaga حاجة كاسو قبلنا ياه واحد عندك سو قبلنا ها السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا ورال النقد وابن كل كان هذا كمدرج أنا مركان قاطع وإلى ترى رحابة وابن كوكي لو بيبي حتى كورا وحفي عم بتقال لي سي هي نحر كوحوها laba diyaaradood oo maaragtay artificial ah oo shaqeyneen oo aan memory ay ku shaqeynayeen ba uu ka go'aya maxaa kugu dhacay soo meel kale wax xaqi kale anoo ku maqlaya soo ma maqlaysa ha ay waxa labada diyaaradood wuxuu ahayd maxaa loo saaray baabuurka oo loo tusi waayay iyagoo hawada socdo oo ku difiileynaya arrintu waa inta weyn nuxurku hadii aynan wax qaribnayn اوكي ما وقفت عن تايتاسي لكن برنامجكم قصي بلالان كرا كودي هي دياردهم كم مشغول ما انه ها وحوين horta wax walba waxa la in malax maalo biniya هي dadkiiba haday bukaan ha xoog kasto leeyahay waa jirtaa هي dadku هي marka uu caafimaad qabo sinaan iyo cadaalad jirto ha adigoo 10 qof ayaa 10 qof aad u jilab dhigi kartaa horan marka diyaaradahan waxaan la keenayay waxa weeye waa shaqadii ninkii Cali Cabdalla Saalax Kood haye daasada caanaha 7 bay socotaa haye xabada tamaandada kilo wuxuu socdaa 700 haye naf ma jirto dadkii waa dan haye عند السرعات كان هو ظني كان لوك إلى هي كجوية ما رتي إلى جل بيك بوتا يجفضل أوروتي وحوين أنه نجم الجيدين كان هالكانوا صعنوا
waan gartay horumarkiiba laba diyaarood laga dhigay deenacab sanadkan mayd imaqal wax walba iyagu wixii iyagu horey u hadleen horta halkan bay yidhaaheen waa ku dhimanaynaa waan gartay meelay ku badbaadayaan baana jir ninbaa aan maaragtay waxaan kuu sheegay ninbaa waa hore u hadlay kowdhe waan gartay oo waagii khayra allaala uu yidhi waargeelu maanta ma dhimana waa hore u dhigay xikmad weyn bay hadalka ay ku fadhiyaan moogtahay ninbaa ka daba hadloo wuxuu yidhi iskardoof iyo dib u xorayn baa ka bilaabantay xasaamba buu yidhi haye daalimiintiina lacag bay sii daldalayaan haye annakuna dhufeesh baan ugu jirnaa qabashadoodii haye kolkaa waxaan kuu sheegayaa ficil kastay sameeyaan waa maquustayaal moogta qofku kolkuu ka tega damiirku ummad idiloo nacaysa ayuu ku leeyahay way ii dhimanayaa moogta fahmaysa kolkaa ku waari mayno danaheennaa ka weyn ninka reer jabuutiya ee dibadda joogo ee carruurtiisa iyo naftiisa intuba uu wanaag iyo bashbash iyo khayr ka buuxow una ninka maanta maaragtay irbad dhiig joojina laga laayahay hooyo ku umulaysa daaraxanaan kule haddana waa boodboodayaa oo dhulku waa nabad kow intaaduu ilaahay ka soo saaray warabulkab aw ilaahay naftay geliyaan ku dhaartee migilow waxa la dhayalsadaa jira mataqaana cadaabtana lagu mutaa jira waan gartay waxa weeyin mataqaanaa nimcadda maanta aad adigu hayso haddaad walaalkaa tilaaho mataqaana waryaha adaa durduryaya inay kugu soo noqotona waa wax waajiba kowdhe halkaan kaa dhex galo madaxweynahan soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay dadka soomaaliyeed saluugsan yihiin ay leeyihiin dad shisheeyaa wato dowlado kala wato wuxuu ku dhawaaqay lacagtii dalbaadega in loo weeciyo dadka baahan iyo ka abaaruhu marka maxaa la dhahaa lacagta lagu dalbaadegaya ee yurub loo soo dirayo ee lagu faanayo ee nanagu jiirjiirayo ee nanagu caayayo dadka u baahan ee dhibaataysan ee jabuuti ku dhibaataysan ee meel walba ee wadaniga ah maxaa haddii dadka laga naxayo xoog baan ku tusaynaa inaan calankan u dalbaadegayna baa laleeyahay lacagtiiba xoog bay ku dalbaadegeen maanta waad arkaysaa dadkii oo baahan dadkii oo xoog lacag xooga ayay u soo direen yurub xoog oo meel walba tareena lagu guraya dadka oo aan loo baahnayn dad reer jabuuti oo la leeyahay uun maaragtay cid walba noo soo buuxiyo oo la isku sawirayay marka lacagta la isku sawiraya ee yurub lagu tamashleynayo dadka u baahan ee haraadan ee xayaabley iyo la yaabley ku go'doonsan ee jabuuti ku karsiis dhibaatooyinka caafimaad iyo kuwa dhaqaale iyo kuwa ku haystaan maxaa loogu gurman waaye bal ka waran arrinta warkoo dhan ku siiye ummadda aan ka dhalanay ummadda ciise weyne ee ilaahay naga dhaliyey sanadkaa maanta may dabaaldegin waxa dabaaldegay aad baad u garanaysaa waa ilmo cali afartii ay wateen marka ummadda aan ka dhalanay annaga maydkeennii baa dibadda yaala calankeenna waxaan u ducaynay shuhaadadii calankeennan hoos baan u dhaadhicina maanta maalin defileeyi waxa inagu kuma jirin warkeennu taa ma ahayn gowd jufo yaa iska dabaaldegtay iyo ajnabigii ay wateen de waxa weyn waa wax maanta aad bay ugu ammaanan yihiin dadka ummadda ciise ee jamhuuriyadda jabuuti ku nool meel kastay joogaan ciise iyo sharaf bay maaragtay mudan yihiin sida ay uga soo jawaabeen baaqi aan u soo dirnay ee ahaa war calankan dadkii u soo dhintay uu ka qatan yahay ajnabi iyo jufada aad aragtay ina cumar iyo ilmaadeeradii ayaa maaragtay boodboodaya annagu maanta boodbood nooma eka maanta waxa weeye dhiig inaan shubno oon lacag bixinno oon difaacno dhulkeenna muqadaska yaa naga go'an wayna maqleen inta yurub joogtana haddaan hoos u laadhaco waa kuwa ajnabi qabay
adowgeenu kuwa ay qabeen uba meelaha boodboodaye dadkii nasabka ah ee la garanayay way garanayaan halkii uu maray harbi way garanayaan halkii xasan gulad maray way garanayaan halkii muumin bahdoon maray way garanayaan halkii diris faarax maray way garanayaan oo hadday maanta dadkaas inaa xabaali dad bay kala asturtay hadday noolaan lahayd 20 sane ee uu kale gumaysigu ciisuhu dama kaleena wadata kor bay u kaasi jiray mid haddaan taa kugu daro waxaa ku idhi wuxuu noqday maanta nin walba inuu iska hadla migirow ma maqlaysa iska hadla waa ina hebel waxaan maqlaynay mataqaanaa maison de beeralka sawir beer oo ku yaala oo waxaa la yidhi waa oday hebel oo baamarta hadda waa odaygii de maaragtay dee markii la samaynayaba lagu sheegay ee lan garanaynin maa in odayaal kala soo baxay gowdhe waxaan de taa kaga jawaabay eeg bal hadda u fiirsado marka lagu turturqayo migirow inaad aamusta maahina waa inaad hadasho 76 baskii la afduubay migirow ilaah baan kugu dhaarshay ma nin cafara ku jiray عفر waxay bada haysteen iyagu maya dawaaban sheeg kuma jirin oo waxayna ugu jirin waaban de kugu daro waxa ku dhiwaan iyagu guverneerkii iyo dawladnimadii ay gacanta ku hayeen oo intaaba wax weyn la ahayd markii halka maxaa kaaga soo baxay sababtay ugu jirin taasa ku sheego waxaba wax weyn la ahaa baan ku dhig maya de maqal sababtay ugu jirin in sheegtay kolka gobonimada ka qayb galay iyaga wax taala abahan baa loo sameeyay laftigooga ma taala loo sameeyay haddana waxaan ku idhi 87 anagoo 77 calan ka qaadanay hor angaar dadkii soo weeraray soo aan beelmahayn dee waa kay dagaal waa ka waqtigaa u bilaa ilaahay maaragtan xariistisna ka waraabiya caamir cadaawe iyo cabdi casood iyo raggii jadiid ninkii jadiida walaaldoon raggii ahaa beelaruusta maaha raggii xasidiya midnimadeenna waxaan kuu sheegayaa imaqal oo aan doonayaa inay ummaddu ogaato war jabuuti ciise la'aanteed ma jirayso waa sax weeye ilaa waagii 8 ilaa markaan calanka qaadanaynin diiggii ku daadanayay dadkii la laynayay dadkii hada maaragtay aamusilaa waxay ahayd ummadda ciise oo isku duuban oo doonaysay in dalkani ka madax bannaanaado ciidankii faransiiska ee kiristanka ahaa ciisena weligii qofna dulun kama gelin afar hadday noqotay soomaalida maxaa talaa cabdooyo inaan halkan facebooka ka dacwino oo ka baano oo baana aan udiban noo qabanay maxaa talaa karaan u baahannahay talo eeg markastoo live maya waan gartay markastoo live soo gala waxaa loo baahan yahay beenta lala marayo ee beenta lagu afuufayo unba aan leenahay war dalkani taariikh uu leeyahay taariikhdaa in been laga sheego inta aan nool lahayn ma yeelayno waan ku fahmay eeg annagaa jecel walaalnimo annagaa jecel laakiin waxa weeye aniga oo maaragtay ilaa daga cantar ilaa halkaa taga mataqaana xaafad ula nin ka tagan dalka hadda hadalkayga oo fiirso dimuqraadiyaddu xad bay leedahay صندوق بلوك على بحام بينبا صندوق قيبة ليسلمة قاعدة وحنا كذا ما يدو عن شيء أنا وحوين أديدو ما طوما ورنا عمر ساو ملجوجي قتالتي ولد إن عمر ساو ملجوجي أدو كويس بدري دونا ما كتم بيعيد استلمترتا هدف إنا ينون نقطة وحنا نقول كوذا عبدويو إنا هدف نون نقطة وردنتين dadka kala nin walba dantiisa isaga garanayso idhageysade hay idhageysade aan ku dhigeyso eeg markaan leefafka soo galo meelahan ka hadlayno ina reerahan kala ku mashquul anigu muhiimiyad ma siiyo laakiin waxaan muhiimiyada siiya eeg aan ku dhameeyade inaan dantayda ka hadlo afar cisho oo dantayna ka hadlay oo ciise arintiisa ka hadlay
waan maqlayaa iminka codadka la ii soo diray iyo waxa maaragtay ka socda baraha bulshada ee dhagarqabu ahaa 5,000 oo nin buud aniga la igu tilmaamayba nin maaragtay raggii haysanayay raggii daroogada iibinaya khatarka ahaa ee maxaa ahaa ku noolaa South America maxay ahayd magacoodii Mexico ku noolaaye ee adduunyo helicopterada lagu eriyay baa la iga dhigayba waa 4 cisho laba iPhone ka hadlay war ciisaan ka hadlaya dantiisa cid kale anigu wax uma dhimayo cid kale ma caayayo cidda kale iyada garanaysa sidii danteeda ku gaadhayso wixii horumar ugu jiro iyada garanayso anu inaan ku mashquulo reer hebel iyo reer iyo kan midna ma rabo waxaan halkan ka rabnaa in laga faa'iideysto maalin walba laba eri oo faa'iido ah oo dadkeena u sheegno war xal maxaan ummadeena u faa'iidaa naga reeb reeraha caliyada samaystay kuwa naga reeb dantooda iyaga garanay halkii guul ku gaadhayaan anagu sideen guul gaadhnaayo ciise sidoo guul gaadhaa arinta inaan isku baasaynaa muhiima waan kugu maaragtay waafaqsanahay balse waxa weeye mar walba tuduc yaroo sii noolaya hadalka waa lagama maarmaan laina waxa weeye intaa hadal baa socda anu waxaan ku idhi nin baa ila soo hadlay dhashay hadalkayga u fiirso 2,000 buu dhashay migil baan dhageystay adiga yiri moogtahay أنا يوم ما كل شو من إنسان هاي وروح على إليه المربع وارجعوا جذوا حبكم الهيب سيدي أنا وحقوية لله هنا سيدي أنا وحقوية لله هنا كهذا الله لأنه إمغل إذا عاد إيرو تقول له أو ننحسن فيه له عروتكم صدق وكسر كلام أيام جرا أو بيني بلايا وذا مط هي ما حكون ما تقنا وحقوسين تلفونكم مجيء الله هذا كود halkan tagno iyo maalinkii aan bilownay xornimada Djibouti 8 baan bilownay halkan qaadanayni ninkii Faransiiska fiista dhigooga Saudada ee lagu dilay waa wax qoran de waa la garanaya waa qoran tahayba ha waa la qaba imaqal markaan ka taabina ee nidahno ما تأكدت لنا عين كان ورنا أمور من عيسى ما هي جبوتي ما كل شيء لكن عيسى يعني أباي كلام وكل شيء هذا حل بيد اللي يرتو نوقف ده حلكي كان حلكي كان ومقدس طول ما تقنا وما تسلم على قوة نور هالكي لكن وعنا هاي تضعني أوكلي إن أي جليان ما تقربور يبلايو كما يلي موت أنا ما توقع ما تجيبوتي كده عيه ما خلوا ما تجيبوتي كده عيه وما تقولن بهالستا أبدو ما توقع كسو كردي برنامجك برلمان كدليرت عيسى هلا سمعيان أنا أقولي هذا أون إن الدقيسة ما كانوا وحنا البرلمان كدليرت عيسى triangle-ka fikradahan u baahnayna waxaan ka rabaa maalin walba wixii dhacay iyo reerkana dulmay warkiisa naga reeb waa laga dhirgay ka cid walba waa laga dhageystay maanta waxa laga rabaa talo dhalinyarta inaad la hadashid wixii dad ku dhageysanaya ee codkeena fahmayo message u dir ay waxay ka bilaabmaan waxa tahay waan gartay qofku ma taqaanaa hadduu ka salkaco wuxuu yahay meelna ma gaadho waxaad wax kula qabsan kartaa maanta uma shan qaadi kartaa caalamka markaad adigu isog tahay cidda aad tahay marka waxaan leeyahay waa soo dhaweynayaa baarlamaanka dhalinyarada waa in dadka ku dhashay Yurub ma taqaanaa dagaha loogu shubo waa in ma taqaanaa la sameeyo ورنتاده وين سمي برلمان مستقبل كدنيرتا عيسى وجهيه horta dhaqan baan leenahay dad inta oo soo jiray baan ahay dad weyn Umar Sameeye iyo xisbigiisu maniin anagu waan ka horeynay isagaan qaabilay oo kale ay soo xuntay oo faraha laga dhigay oo si xaq dariya maaragtay in waxaan moodayna islaam ma ahniku walin masiixiya marka waxa loo wixii إنسانيما نقول أننا حتى نهاي تبكي هكا كل شيء ريج بوتيها وحويج الواحد نجح وورن خصوصا الغنى يلا ما تقول كودي واقف
marka Miguelow en hadalku murtibu dhintay hadduu si batana uu qalloocda kool anigu waxaan aaminsanahay inaad dareenka adiga kugu jira iyo bar badan oo dadkeena ka kacay taqmasho ka kacay waxa weeye wax laga ducaysto haddana islaam waxa jira afarta jahaba haddii laga weeraro waa habeen dana warniki kumeelaya dawaska ridi kartaa laakiin maanta haddii xanuun kugu yimaado ilaahay baa keeno wad ka samraysa laakiin ina Umar dhibaatadu isaa ku hayo sabir ma jiro waa in laga kaco waa sax weeyaan ha inta galka ina Umar lagu samri kara maaha waa in gacan loola tagay ka dhigan tahay dadka reer Djibouti dad raggii difileega marayay ciidamada xukumayay kuwa cirka kuwa dhulka kuwa badda kuwa xuduudaha kuwa maaragtay booliska kuwa sirdoonka kuwa diyaaradaha kuwa dibaabadaha iyo artilleriga generaalka ugu sareeya ciidamada kuwa gaar republikaanka geebi jufay haayeen jufadu waa dad annaga naga tirsan tahay waa jufa ciisa laakiin haddii aad maxaan ku dhaayay tuug ma ogolada inuu xitaa tuug inuu sii dhac ma ogolo tuuga kale inuu dhac xitaa ma ogolo isku dilaan oo waxyaabaha ku dhintaan baa kamid ah marka waxa weeye annagoo ciise wax ku raadinayna buu ciise sii dhacay dadka reer Djibouti ee laga leeyahay calan baa jiro loo dalbaadegayaa dawlad baa jirto ma jufa dawlad lagu noqdaa mise dad iyo bulshada dawlad lagu noqdaa bal eeg ciisihii baa la'nahayba ha kolkay arkaan ay tiriyaan intaasoo jaranaal intaasoo koroneel intaasoo jaranaal oo soo taagan oo hadlaysa dadkii intii leekaaya ciise iyo cidtii kale nolol noolayd ma wada aqoon gaaba ma maangaaba xagee mareen maxaa dhacay maxaa ciidamada ka raray maxaa awoodi ka tiray waayay bal aan mataqaana wixii qalbigayga ka guuxayaan ku sheego horta Cabdishakuur waa nin xoog u jecel ciidanka qalabka sida koodhe taariikhdeedu waxay ahayd defile kasta waxaan tagi jiray 5 subaxnimo koodhe weligeena waxaan jeclaa waa holhol ragga holhol ka soo baxa waxaan kula talinayaa ummadda maanta daawanaysa ciidankii koofiyadda buleega sitay ee holhol ee uu kolonelku hor socday ninka yar ee maaragtay Sacad Muuse hor socday bal eega ragga lug dhaafaysa markis holhol waa dugsi tababardi ha waa dugsi tababar maqal waxaan ku hayaa waxa jirta hees ay oran jireen holhol waa eeg bilada baa waxayna bilada haba loo xidho holhol waa dalkeeni وهويجي من لماذا وماشي إذا كقلب كسيدو لقطة ورّي ودقيقة وما غلسة هذاك ويكو عشرة تجان سيوصل المركزة ويكو عشرة تجان مركي عشرة ويكو هدى تجان حسن الله عليه خير الله عليه ولالكي أيا نوها تبرئ أنك holhol markaan ku jiray anu dugsigaan galay holhol akademiga holhol baan galay xasan allaala noo ahaa tababare oo macallinkaygu xasan allaalu ahaa inaad garanayeen kelmada khayra allaala walaalkii marka ofisiye buu ahaa ofisiye buu ahaa marka waxa weeyaan de waa markii ay dawladnimadu sii jirtay bay ahayd waa 1990kii imka waxaan doonaya inaan kuu sheego diga soo dhex gashay liyadna kolonel markuu gaaro nin aan ahayn jufada kolonel mataqana imika ninka shaxim ee tajoraysta waa major kolonel major weyn ma dhaafi karo intaa waa lagu xidhay majorka wax loo sii waa la xidhayaa waa inuu halkaa dhaafin ma maqlaysaa waa aragtay gaashaangiir waa major gaashaangiirna haa waa run وانا كل شيء مكتب وانت اللي دلي انت اضيع علي صوبان اضيع علي صوبان كلكي اضيع وكيل كده الجديد اذا عدي waa laga sheegay waxa la yiri jarnaalka hogaaminaya ciidamada hiil qaran ee loo dirayo hiil walaal ee loo dirayo Soomaaliya
waa isaga kolkii la yidhi raadiyoga Djibouti laga sheegay ayaa subaxii dambe laga masaxay oo la bedelay waar waxa la yidhi masneed ugu dhiibaysiin ma fur laba dhulka ma dadka dhulka ka tirtirayna baad magacooga idaacada ka sheegteen oo jaranaal ku magacawdeen waar kan masaxa oo dib waad khaldanteen waa arrin ka dhacday Katre Medrusma nin wasiir ahaaba Katre Medrusma maxaan ku dhahay nin baa galay konjeebu galay nin Abdu Ciise loodhanayo reer Karsiisa oo deenin Ciise weeyaan isaguba oo nabti u hayn konjeebu galay konjeeb markuu qofku galo ajwaaga noqdo de maaragtay baranterim marka ajwaagii baa loo sameeyay inuu baranterim noqdo oo warqad loo sameeyay oo la yiri waxa baranterim hebel waan yaroo la odhanay magaciisi muxuu ahaa Real Sabiixa marka waxa laba dhowr saacadood buu baranterimkii ahaa waa ninkii isla markiiba baranterimkii waa laga qaaday bal ka waran marka wax weyn waa dad sida dhulka looga ilaalinayo anigu waxaan ka wada hadalka u soo qaadanay ciidamada war kolka aad aragteen ciidamadii difileega maraya dadkii horkacay iyo dadkii qodbadaha jeedinaya iyo dadkii biladaha iyo galoomada ugu waaweyn sitay ee inay yihiin jufa Ciise kamid ah ay wada yihiin gabigooguba xaquuqdii dadka kale oo dhan bal dadka kale iyaaba koogi wax anfartu iyada teeda u hadlaysa bal haba halkaas ka joogto dadka nala degan iyo kuwa minoritaadkina tooda iyaga u hadlayo Ciise kale oo dhan aaway xaquuqdiisi maxaa ku taageernaa bal taliska waxa lagu taageeri aaway waxa taageeri oo ku sheegi waxa weeye ma taqaana minoritaadki way saaceen afar bay daba galeen hay shalayna afar iyo inagu waxaan lahay warkaale dalkan badbaadinay hay wayna weydaarteen oo kuwii halkii galbeed aaday hay halkii xoogii hore kol 29kii Djibouti laga badbaadiyaa soo baabiinayna balay way garanayaan meesha ka sax markaas ku soo noqon doona halka koodh waxa ku sheegtay xalatu waa soo mataqan mar halka la isku helay wakinin walaaldoona ilaa raala ka aday koodh يا قولي قليل أو ديوتو كنتي موسيقى. ده أكيد مارة ده يريد مارة واحدة مار حرقته توك حياة كلها هيدو حل الرير كفرتو حسن بعض كقاد وحبي مامل ولا هاي إن الرجال وقناري هاي أفكار حور ما كنتي بو. ما فهمت. وارسيدا أي دولة يعني إن عمر يجفدش. سو مرتيه. والله الله دولة سبحانه وتعالى. الله يكريه. أنا ما تمنقل هو نقول إيشنا نقوله. هذا كان هلا يسوع. وترى هذا هلا يسوع. هلكو إيش الجوعي هلكو ما تجوع عوض هلا إنه. إركي روك أول حين. ما شاء الله. والله بينكم الشيء مقدر. والله السير لو قلت لك إيمان دونان وحنقول فعل كسي سميان جفراي ما تقانا. أنا أقول بيرجلين بكلا مقدر. وانا. لأن مجلو waxaan ku sheegaya haddaan adigu ku isayn waayo saxab meel kale lagaaga tuman meel muu ku gaarsin may sidaa ugu jir Mustafa waa ninkan Cabdo ha dhameeyay isaga soo gabagabeynayay marka waa kaas waan ku salaamaya gaarsiya meel dheer ku tuura أوكي يقولوا كان حي بيج بوطة إن شاء الله تعالى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باكو سلام يا هيا كوسو عادي قولنا له. هيا كوسو معاك بالكان الله يسبرقامش. السلام عليكم. وار مموت بعد قشة كوسو عبل وكوسي داية كوسو. ألو ونكن ما بس وموت بوقلي. barnaamijka inaan soo gabagabeeyaan rabaa ninkani ma soo qabsanayo war ma ku soco hadaad maqlaysi mamuud baad gashay ninkii uu ka baxay ee ku soco codkii miyaa laga xidhay war waan ka saaray ma soo qabsanayo de Soomaa waxaan idin sheegayaa waan soo gabagabaynayaa barnaamijka maxaan ku idhaayay wara maxamed albaabka ka fura waan soo gabagabaynayaa barnaamijka marka
annagu waxaan ka hadlaynaa waxaan idhi war canfariyada tashanayso haddii ay nala tashato ay talena weydiisana dee diyaar baan u nahay samaroon isagaa tashanaya cidduu ku biiraya hadduu reer cali ku biiraya iyo hadduu canfar ku biiraya isagay u taallaa isaaq isagaa tashanayo waxaan rabaa dadka ciisaha ee baraha bulshada ka hadlo war intaad canfar iyo isaaq iyo gadabuursi caydooda halkan aad u soo gelaysiin waxaan iniiga baahan yahay inaad juhdi gelisiin dadkiinna iyo wixii aad u tari lahaydeen waa kaad cabdalle dabarkalo ugu yar baa diray intaasoo huba bal eega inaguna caybaad halkaa la soo gashiin oo ood isku camirtiin caydana si fiican baad u camirtiin marka anugu waxaan ka codsanayaa ummadda ciisaha war cay waxaa la yidhi nin ay waxyeeshani lama eg nin caytamayna ammaan male baa layidhi oo nin fiican waa nin fiican ninkaa laguma odhanaya xitaa haddaad sidaad waka ninaad caydayna waxay jebisay lama arko nin caytamayna kii caytamayna ammaan ma helo marka waqtigiina intaad gelin lahaydeen isaaq gadabuursi canfar waxaan iniga rabaa inaad gelisiin waqtigiina ciise siduu iskugu xidhmi lahaa siduu u samaysan lahaa nidaam siduu u samaysan lahaa dadkani kala guuray iyo waqtiyadan kala guurka ah nin walba halka uu joogo siduu isku diyaarin lahaa siduu baarlamaan isku mida u samaysan lahaa siduu dhul isku mida u samaysan lahaa cidda wada noolaashaha ogol siduu ula noolaan lahaa xeerashuu kula noolaan lahaa cidda maaragtay doonaysa inay xoog iyo dhibaato ku gaadhsiiso siduu iskaga dhabi lahaa inuu dhaqaale samaysto inuu xuduudo samaysto inuu ciidamo samaysto inuu hub iyo difaac samaysto waxaa ku mashquula ciiso hebel baa caytabaya soo gala kolba meel iyo qol inaad saas ku daba yaacdiin oo dumarkuna de waa sidaas weeyaan haddii la dhaha isaaq baa la caayaya gadabuursi iyo canfar baa la caayaya waa halkaa bay ku wada yaacaya waxaan nii sheegaynaa dumarkan iyo gabdhaha ciisow wixii jeebkiina aad ka bixisiin waxa weeye waan ognahay inaad lacag iniga badan ma haysiin oo adduunka meel cid walba waa iska dhibaataysan tahay meel walba lagu dhibaataysan yahay cid walbana cid baa haga dambaysa baahan inaad naftiinni iyo reerihiinni iyo ubadkiina ku dayactiriin iyo waxaan iniga qaaday inuu noqdo wax u noqdo dhaxal ciise intaasoo yaa maaragtay qaraan iyo maxay iyo wuxuun wadaa weli ma hayna cid ambalaas iibisay cid ciidamo u qortay mishaharoo tidhi ciidamadii difaaca ciise waa kaa mishahara loo qoro oo intaasoo ciidan war baleeg ee aniga igu qora lacag baa la ururinayaa soo gura lacagta qol walba lacag baa laga urushaa war dadkii waaba naqandaqdaraas war lacag ha bixinina lacag ha la bixinin ilaa la helo dad cadaalad ah oo lacagtani meesha ay ku baxayso iyo wax lagu bixinayo iyo sida loo hagaajinayo ha bixinina lacag 5 sano ka hor baan idhi war guddi han samayno la yidhaaho guddiga abaaraha masiibooyinka degdega ah meeshii uu daad ka fataho meeshii ay dhimasho ka dhacdo meeshii uu maaragtay haraad iyo laga soo sheegay dhibaato meeshii ay dab ka dhaco ama Djibouti ha haato ama Somaliland ha haato ama Ethiopia ha haato u gurmada oo dhaqaalahaana ururiya ha samayno guddigaaba xal u arkay oo soo jeedi cid iga dhageysatay iyo cid ila qaadatay waa la waayay 200 oo guddi baa la sameeyay oo aan ku jirin wax ka shaqeynaya iyo wax taariikh loo meel maanta ku qoran amba la ogyahay ma jirto marka waxa ku soo gabagabeynaya ciise u tasho ayda dadka hamoodin awood malaha dad waxa tahay facebooka ku dabira dhaxsanayo xorriyadii Ismaaciil Cumar uu ka qaaday xabsigii halkan baad ka hesheen xorriyad oo inaad caytantiin taasaad maaragtay moodaysiin guul iyo horumar ayda dadka la iska daayo anu cidna amaani maayo cidna ma caayin cid walba iyada tashanaysa cidii wax nala leh nooga baahan talo naga rabta talo naga rabta inaan wax wada yeelano iyo qorshe ahlo wasahlan cid aan rabina iyada u taala meesha ay maraysay meesha wax ka soo helayso laakiin inaan danahayna ku mashquulo oo ka tashano ayaa muhiima taas waa taas weeyaan marka taa Djibouti saasa kaga baxaya ummadda reer Djiboutina waxaan u sheegayaa hadalka yaga ha dhageysanina anagu dad xun baan nahay dad bala sheegaan nahay
dad aan maaragtay xorriyadda Djibouti iyo nimcada Djibouti ka jirta aan arkayn baan nahay dad ay indhahoogu waxa u sawirayn baan nahay dad xun baan nahay nagu boqora ciidamada difiileega maraya ee u dalbaadageyseen iyo calanka cidda u dalbaadageysay ma reer baa reerka ma calan baa leh calanka ma reer baa leh war calanka ma reer ciise ka mid ah leh mise calanku wuxuu lahaa calan ummadda reer Djibouti ma ciise oo dhan iyo ummadda reer Djibouti iyo canfar iyo cid walba leh calan mise calanku waa calan ay reer leeyahay intaa uu isweydiiya annaga dad xun ugu qora annaga dad Itoobiya kiinda nagu qora annaga dad aan waxba garanayn nagu qora annaga waxa doontina dhah taas waa hawlaynayaan annaga waxba naga gel laakiin inagu maxaad helaysiin inaad isweydiisiin baa miina maxaan inidana calanka ma afartanina jufada saas ku soo wada taagtay galoomadii ciidankii badda haye wahiib may ciidankii cirka wahiib ciidankii badda colonel Wacays ciidankii booliiska maxaa la dhahaa magaciisii ina turtur ciidankii generaalkii ciidamada ugu sareeyay general Sakariya ciidankii artilleriga colonel maxay kala ciidankii gaar republikaanka colonel Maxamed Jaamac ya ciidamada ninkii sirta oo dhan xukumayay Xasan Saciid madaxweynihii dalka Ismaaciil Cumar la taliyaha madaxweynaha arrimaha diblomaasiyadda iyo affaires étrangères Idris Buux Cumar Geel maxaa la taliyaha koowaad ee madaxweynaha dhaqaalaha ee ekonomiga Fadhiya Jaamac Udin iyo maaragtay haybado xogayaha guud ee wasaaradda maaliyadda maxaa la Guuleed Axmed Sigad kolkaad sidaa loo tiriyo wadanka calanka loo dalbaadagay maqalaan wax weyn calanku waa calan ummadda reer Djibouti wada leh ها السلام عليكم war hadal de maxaa kugu dhacay walaal hadeer baan ku soo qabtay si baan ku dhig laakiin markii dambe haye ku soco waxaan ku yiri si sheegu maxaa maanta ma dhageysanin miya ma dhageysanin dhacmintii dambe ma soo gaaray maray may adi wixii si ku maartay wixii ku gubaya ka hadal ee dareenka adiga kugu jira la rabaa inaad ka hadasho maanta haddii wax dareen tahay oo maxay ku saabsan adiga haddii dareen kugu jirin de walaalow iska daa meesha iskaga bax haddii wixii dareen ah adiga kugu jiro meesha waxaan u soo galay waa wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada maxaa la dhahaa geeska Afrika haddii aad dantaada halkan ka hadlaysid oo wixii haddii ay dhibaato jirto haddii aad horumar gaadhay oo barwaaqo haysatid ka hadal haddii kalena de maxaan ku dhaano tay si fiican waxba uma sheegin laakiin aan wax jecelahay hadalladaada waxay baa ka soo dhax saarnaa ma garan haye marka qofka bini'aadamka laga bilaabo ka dareen hadal iska hadal mid dareenka waxa keena iyo maaragtay waxa laga hadlay waxba keena marka haddii lahayn wax